intaanu ka koobnaan doonaa insha Allah waa dul mari doona ma u bisi doona so su'aasha what's food security su'aashan isweydiinayna marka maxay tahay food security muxuu noqon doonaa slide waxaan jeclaan lahaa inaad I wish this one inuu sii shaqeynay ina okay waa maasanta okay su'aasha waxaan isweydiinaynaa maxaa la dhahaa food security maxaa la dhahaa so sida ka muuqata figurkan wuxuu muujinaa in sanadihii u dambeeyay isbedelada ku imaanayeen tirada dadka cunno la'aanta ah haddaan fiirino from 2020 up to 2023 waxaan arkaynaa almost tiro gaaraysa 64.1 milyan dad ah inay cunno la'aan soo wajahday so marka waxaa la isweydiinaa why what causes maxaa sababi kara cunno yaridan maxaa sababi kara so waxaa jira waxyaabo fara badan oo sababayo cunno yarida waxyaabo badan oo sababa maxaa kamid ah kobaca dadka ay sameynayaan waxaa kamid ah isbedelka cimilada sidoo kale waxaa kamid ah waxa loo yaqaano conflicts ayaa kamid ah so anaga og marka saameynta iyo dhammaan variables kan ay ku yeelan doonaan wax soo saarka cunnada ayaa waxaan go'aansan inaan fiirino sidee qaab noocee ugu falgali doonaan East Africa qaasatan Sub-Saharan Africa qaab noocee ayay ugu falgali doonaan so sida muuqata badana wax soo saarka ama dhaqaalaha adduunka sida caadiga saddex marxaladood oo soo maray sida meesha ka muuqata marka koowaad dhaqaalaha wuxuu ku saleysnaa qaab loo yaqaan agrarian ku saleysnaa so waxa la soo saarayo ama GG loo yaqaano aad u yara taas marka waxay sababtay xiliyadaas in wax walaac ku saleysan environment ama climate change oo soo jira so isbedeladii imaanaya inta u dhaxaysa 1750 ilaa 1850 ayaa wuxuu sababay in wax soo saarkii xaggi beeraha laga soo wareegsado loo soo wareegsado xagga iyo maxallaha warshadaha taas marka waxay keentay in emission kala soo saaray marka dambeysay oo batay taasna ay saameyn ku yeelatay wax soo saarkii ay saameyn ku yeelatay so marka waxaan rabnaa study-ga marka inaan ku soo ogaano saameynta isbedelada ay ku imaanaya climate change-ga sidoo kale sicirka cunnada iyo nidaamka dawladeed ee meeshaas ka jira oo ku yeelan doona waxa loo yaqaan wax soo saarka cunnada oo ku yeelan doona okay hore waxa jira istaadiye hore looga sameeyay waxa kamid ah istaadiyadii sameeyna Abdi iyo Warsame so labadoodba waxay hore u soo baareen ama ay soo gaadeen mar walba isbedel ku yimaada cimilada inay wax soo saarkii ama productionkii food security wadankaas uu hoos u dhici doono so daatadeena ama cilmi baarisan waxa ka sameeyay ilaa iyo wadamo gaaraya 32 wadan xilliga u dhaxaysa 2000 ilaa iyo 2020 xogta aan isticmaalnay waxaan ka keenay meelahaas aan ka soo helnay variables ka isticmaalnay meeshaas ayay ku xusanaan doontaa so this is the panel ERDL model aan analyze garanay markii aan study-geena sameeynay so maxay noo sabax marka maxaan soo according to this according to our result waxay tilmaami doontaa in mid accept markii laga reebo institutional quality iyo waxa loo yaqaano institutional quality environmental degradation inay inta kala saaro qaadan food security-ga halka labadaas kalena ay hoos u dhigaan waxa loo yaqaano food security so result gudaha musiigal doona ka sii dhaqaaqi doona so maadaama aan soo helnay xiriirada ka dhaxeeya mid walba sida uu saameeyo maxaa recommendation aan loo baahan yahay in aan naga bixino so recommendation keena waxa kamid ah number 1 in sare loo qaado waxa loo yaqaan agricultural land expansion in sare loo qaado sidee marka in la sameeyo sustainable land management practice so sustainable land management practice maxaa oo la jeednaa waxa loo jeedaa qaabka ama si loo practice gareenayo beerashada in la bedelo sida caadiga waxaan naqaanaa dadka beeraleyda markay beertiisa fashaan kadib in caradii beertii dib la iskugu celiyo so in la sameeyo ama la isticmaalo nidaam loo yaqaano no-till farming loo yaqaano waxaa la ogaa daraasado la sameeyay mar walba carigadin la sameeyaa in wax soo saarkii markii hore markaas uu hoos u dhaco so si taas looga hortago waxyaabaha la contribute gareeya ama waxyaabaha la sheegay in la isticmaalo waxa kamid ah no-till farming in la isticmaalo sidoo kale inaan isticmaalo waxa loo yaqaan agroforestry ama crop rotation wax la dhahay agroforestry waxa loola jeedaa in beertii iyo geedihii labadiiba la isku dhex wato in waxa ugu caansan laba system ay isticmaalaan Mareykanka iyo wadankan loo yaqaan Brazil ay isticmaalaan so Mareykanka kale wuxuu isticmaalaa waxa loo yaqaan valley cropping waxa la isticmaalaa inuu isku dhex beero noocyada kala duwan ee beeraha inuu isku dhex noocyada kala duwan ee cropska inuu isku dhex beero kuwa dhirirku baxayo iyo kuwa jijiifku baxayo si hadooda isku caawiyaan sidii cimilada dadka cimilada waxyaabaasna ay saameyntooda iskaga yareeyaan sidoo kale waxa kamid ah waxyaabaha kurmugan gareena markaan study-gaan sameeynay waxa loo yaqaan climate smart agriculture so climate smart agriculture maxaa laga wadaa waa crop ama wax soo saar u dul qaadan karo waxa loo yaqaan climate shock haduu dhaco tusaale marka maxaa kamid ah in la ogaado deegaamada qaar what kind of crop are resistance oo haduu isbedel cimilo ay timaado so in markaas kadibna oo deegaanadaas laga abuurto koobkaas haduu isbedel cimilo u imaado oo saameyn uu ku yeelan sidoo kale waxa kamid ah waxa loo yaqaan in la sameeyo sida systemka isticmaaleen Malaysia kale loo yaqaano rice fish farming waxa loo yaqaan in la isku dhex abuurto dadka isku dhex abuurtaan ama isku dhex wadaan beertiina inay fashaan sidoo kale beertii dhexdoodina malaayga ay ku dhex helaan so haduu shock u dhaco xitaa in
beertii haddii waayaan ee malaayga ay isticmaalaan ama source of income u noqoto si hadoodii food security-ga accessibility-ga ee u yeeshaan so halkaas aan kusoo gabagabeynaa muku sii dheeraanay aadaan u mahadsantiin